Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaa idin wadaa qisadan oo ay wax ka qoreen jaraa'ido waaweyn oo ay ka mid tahay jariidada laga leeyahay Kuwait. Qisadan ayaa waxay ku socotaa gabar la yiraahdo Yasmiin ayaa qisadeeda ka sheekeynaysa waxayna leedahay sida tan: waxaan ahaa gabar yar oo ku garaadsatay oo ku caqlisatay guriga awowgeed iyo ayeedeed. Waxay tiri waxaan xasuustaa markaan 7 sano jiray inaan la noolayn aabbo iyo hooyo iyo jawi caa'ili ah, yacni jawi family inaan ku dhaxnoo kusoo korin. Waxay tiri markaan dhaho awowgay hooyaday aaway wuxuu dhihi jiray yacni hooyaday iyo aabaha way kala tageen, hooyadana way wadanka dhan bay ka tagtay waxayna aaday Ciraaq, waxay guursatay nin Ciraaqi ah halkaas ayayna aaday, dib dambana looma arag. Aabahayna waxaa la dhihi waaba arki jiray oo wuxuu yacni joogay yacni magaaladu geeska deganaa awowey iyo ayeeyo ayuu u imaan jiray soo booqan jiray oo ah asaga waalidkii dhalay ah. Weligeena waxay tiri aabahay naxariis iyo jacayl kama arag, markuu islaamayo si shishe uu isii fiirinayay, yacni salaantii salaan qabow oo yacni jacayl aada ka arkayn, nacayb ka arkayn, adiga jawi degan buu iska ahaa odagu. yacni ilmo aabahood markii ay salaamayaan si isku salaamaan laxaw iyo kalgacayl iyo jacayl toona aabahay kama arki jirin ayay tiri gabadhan. Waxay tiri markastana waa ka fikiri jiray aabba muxuusan u yahay, yacni lacala hadaada hooyada ay adoo yar ku tuurtay oo kaa tagtay, lacala muxuu aabaha adiga yacni xataa jacayl waalidnimo kuu tusi laayahay, caruurtiisa kale iyo reer kale ayuu leeyahay. Waxay tiri cuqdadaas ayaa iska qabi jiray. Waxay tiri dhowr jeer ayaa waxaan ku fikiray inaan aabbo dhaho aabbo yacni maxaa jira, haddana waxay tiri iska xishoon jiro iska aamus waxaan dhahaa yacni waxba ha hadlin oo yacni kolley wax walba waa arki doontaa. Waxay tiri Yasmiin waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inuu aabahay galay safar dheer buu galay, muddo uu maqnaa. Markuu soo noqday bay tiri aabe waa dareemi kartiin reerkiisi u xiiso qabaa, ilmihiisii, waalidkiisii, dadkii. Anigana waxay tiri markaan qof 17 years baan jiraa, 17 sano, qof weyn oo soo caqlisatay baan ahay oo naag weyn wax kala garanaysa, laakiin maskaxdeedu wax badan ka guuxayaan oo aan ku fakarayo tookadan aabahay hadduu yimaado inaan si kafool aabahay yacni jacaylka uga kasbado oo isku dardaro oo aabba maaragta ka keensado, aabba la hadlo, aabba wuxuu qabo ogaado ayaa iga go'an bay tiri. Waxaan sugaba aabba waa yimid, markuu yimid asagoo aad u faraxsan oo maaragta oo waalidkiisi u faraxsan ayuu yimid. Awoowe iyo ayeeyo ayuu madaxa ka shumiyey ilaa lugahaasa uga shumiyey. Waxay tiri anigana anoo meesha taagan uu caadi ii salaamay sida qof qariib ah ayuu ii salaamay oo wax yar oo xataa kalgacayl waalidnimo ah ima tusin. Meeshii ayaan anigu ku fikirayaa bay tiri, waxaan go'aan ku qaatay tiri inaan maaragta aabbo tookadan gurigiisa iyo ilmihiisa oo markasta aan dabca inaan aada lay dhaho ma aadi kartid oo aabba ii diido gurigiisa inaan aadi ilmihiisa, ayaa waxaan go'aan ku qaatay tiri tookada inaan u raaco. Sidiina ayaan sameeyay, waxaan ku iri tiri aabba waa ku raacayaa, markaas wuxuu yiri waxba hay raacin maxaa iska joog. Awoowe waa fiiriyay wuxuu dhahay yacni ma iska joogtid awoowe oo guriga aabbaha waxba ha aadin. Waan diiday bay tiri ilaa waagaa yaraa su'aalo badan oo igu jira ayaan rabaa bay tiri inaan ogaado, marka waa ku adkaystay tiri. Adigu alxaasil way aaday qoftan waxay raacday aabaheed. Yasmiin waxay aad u daneynaysay ama aad u xiiseynaysay inay aado guriga aabaheed oo ay aragto ilmaha aabaheed, xaaska aabaheed iyo dhammaan waxa ka jira meesha inay wax soo ogaato soo fahanto ayay 100% daneynaysay. Sidii ayay ku adkaysatay inay aabaheed gurigiisa u raaci doonto. Adigu ugu dambeyn way raacday guriga aabaheed. Waxay u tagtay ilmo yaryar oo aabaheed dhalay iyo eedadeed. Adigu sidii ayay maaragtaa waxay tiri aabahay ilmihii aan u tagnay ayuu si yacni kalgacayl iyo rabitaan iyo jacayl ku jiro ayuu ilmihii u salaamay oo hadiyada u geeyay oo kala arag. Anigana meeshii ayaan micnihii
ayaan sii fahmay in maaragtaa ii sheeg odaga aabaheeya uusan aniga ii rabin. Adugu waxaan go'aan ku gaaray islaantii ay tahayna qof xun ma ahayn oo liigu dhihi jiray guriga ayada xun laguma geynayo. Adugu markaan dhowr beri joogay bay tiri guriga aabahay oo cidi dareynaysa aan is jirin aabahay inaan jiray in kale uusan kala ogeyn oo halkaa ay marayso ayaa waxay tiri guriga awowgay ku soo noqday oo iskaga soo tegay anoo quustay oo ogaaday aabahay ciladu iga qabay dhibtu iga qabay iyo wax aan garanayn weliba oo laakiin og in maaragtaa aabahay uusan i rabin taa kaliya og ayaa waxay tiri usoo kasoo tegay. Adugu muddo yar kadib maalmuhu waxay isdaba maraan oo isdhaafaan muddo yar kadib adiga oo waxaa dhacday in Yasmin ii sheeg Yasmin qof wax iska danaheeda iska qabsanayso iska nool wax iska baranayso laakiin quusatay oo qof qalbiga wax ka qabta ah bay ahayd. Adugu muddo yar kadib Yasmin waa la soo doonay wiil ayaa soo doontay wiilka soo doontay Yasmin waa wiil aan ka fogeyn iyada oo eedadeed ee dhashay saddexda eedooyinkeeda oo magaalada degan wiilashooda mid ka mid ah wiilkeeda waaye oo wiil maasha Allah iska yara qurxloo ah oo markaas nimanka maaragtaa ku jira magaalada uu ahaa. Adugu wuxuu aad u jeclaa Yasmin waxaana asagana jeclayd eedadeed kale gabar ay dhashay. Adugu ugu dambeyn wuxuu guursaday Yasmin gabadhan iska aamusan oo miskiintaayo maaragtaa ilaahayna quruxda siiyay ayuu daneeyay markaas jeclaaday inuu guursado sidii ayuuna maaragtaa Yasmin ku guursaday maasha Allah aroos fiican loo dhigay. Maalinkii arooska waxaa timid oo kasoo qayb gashay arooskeeda gabadhi ayada eedadeed dhashay asna habartiisa dhashay oo ninka Yasmin soo guursaday rabtay inuu guursado oo aad u jeclayd ayadoo yaa lagaa dareemin ah ayay arooska timid oo yaa lagaa garan ah wax dhib aan qabin oo maasha Allah ayay arooska timid halkaas dadka martida arooska timid ayay ka mid ahayd. Adugu alxamdulillah si qurux badan ayay ugu dhamaatay Yasmin xafladii guurkeeda sidii ayayna ku aqal gashay sanadkii koowaad wax dhiba ma jirin. Adugu markii ay waxbarashadeedii xataa jaamacadeedii dib ugu noqotay maasha Allah faamilka awowgeedii ayeeyadeed iyadu waaba quusatay aabbe iyo hooyaba dhinac bay iska dhigtay maadaama hooyadeedna lagu yiri Ciraaq way ka aaday way ku tuurtay aabaheedna uu saa yahay iyadoo iska niyad jabsan oo jacayl iyo waaridnimo wax walba awowgeed ayeeyadeed ku haysata haddana waxay tiri qof nusqaan ah ayaan ahaa. Adugu waxay tiri markii dambe sanad markii kasoo wareegatay waxbarashadeedii dib u noqday oo sanadna uu qabo ninkan ayaa waxaa dhacday tiri maalin maalmaha ka mid ah adugu markii aan sanad guriga joogay ayaan kadib baan cunugayga weyn uurkiisa yeeshay. Adugu markaa cunugiisa u dhalay oo 9 bilood cunuga caloosha aan ku wada dhalay baa maalin maalmaha ka mid ah ninkeyga waxaa u timid bay tiri warqad taleefankiisa iyo warqadda lagu soo diray waxaa ku qoran qof wanaag kuu sameeyay qof wanaag kula jecel warqad uu kuu soo diray ayaa ku qoran. Waxaa ku qoran gabadha Yasmin aa qabtid ma ogtahay inay aaba lahayn ma ogid miyaa oo qof xalaal ku dhalatay inaysan ahayn oo aaba la'aan tahay ma ogid miyaa odaga hebel ah aabaheed maba ahanba ayaa warqadda lagu soo qoray. Waxay tiri asagoo ordayo ii yimid wuxuu yiri maxaa khaldan arrintan maxaa waaye arrintaas maxaa ka ogtahay arrintan ka waran oo lii soo qoray. Waxay tiri aniga asaga kama fakaraynin ilmahayga cunugayga yarka iyo asaga iyo waxaas oo dhan kama fakaraynin waxaan ka fakarayay in maaragtaa aabahay suu iila dhaqmi jiray xasuustaa aabahay suusan ii jeclayn aabahay siduu shishe ii fiirin jiray
يعني سؤاليه يعني استفهامك إيسارنا أودن أيها ماركتا waxaan siri warqadan waaba ku ogaan doontaa ayadoo qaylinayso ayay wixii u tagtay guriga awowgeedii ayeedeed awowgeed wuxuu yiraahday fariiso yani arrintaas wax ka jira maahan adigu ninkeeda hooyadiis oo ah iyada eedadeed xataa iyadoo qaylinayso oo bay u tagtay ay leedahay aabbo maxaa wiilkayga gabadha guursaday maaha miyaa gabar oo walaalkay u dhalay arrinta jirta iyo sirta meesha ku jirtay arrimaha nooga dhac oo noo waran aabbo odaygii markuu arkay gabadhiisii yartahay Yasmiin oo iska ooyeyso oo yani aad u murugaysan iyo islaantiis dohdeed ahayd marna eedadeed ahaydoo isdaba socday adduunka markuu odagu arkay musey weyn buu ahaa oo da ah wejigiisa garkiisa ilin baa qoysay hoos buu fiirshay yani wixii yani kolley nin wax og weeye adugu meeshii ayay iska ooyday Yasmiin waxay tiri oo inaa ii sheegtid mehe wax kala soconaya malahan islaantii yani dhashay wiilka qaba Yasmiinna oo eedadeedna sidaas oo kale ayadana wiilkayga ma qof wuxuu guursaday yani nasab aan lahayn oo walaalkay yani uusan dhalin adigu meeshii baa odayga wuxuu ku dhahay yani odayga wuxuu yiri markuu arkay inay dadkii dhan wada qaylinayaan oo qof nasan uusan jirin oo ummadii wada yaaban tahay ayuu yiri fariista anaa idin sheegay sheekadan meeshii kasii u dhacday adigu wuxuu yiri wuxuu ka dhacayaa wuxuu u sheegay qisada meeshan ku jirta oo ah in maaragtaa wuxuu yiri guri weyn baan deganayn aniga iyo labadayda wiil waa Yasmiin aabaheeda hadda aan arkayno iyo adeerkeeda oo markaa lagu sheekeeyay in maaragtaa uu ka guuray wadanka dhan wuxuu yiri aniga iyo labadayda wiil guri weyn ayaan deganayn iyo oo maaragtaa oo shaqo falaad ah waxaa dhacday labada wiil oo aan dhalay oo Yasmiin aabaheeda iyo adeerkeeda yani waxay ahaayeen laba nin oo shaqo taga oo xaasas qaba oo meesha u degan yihiin oo maasha Allah ayay ahaayeen ninka weyn oo labadayda wiil kan weyn baa ilmo u joogeen Yasmiin aabaheedna markaas waxba yani aroos cusub bay iska ahaayeen adoo wuxuu yiri maalin maalmaha kamid ah ayaa wuxuu yiri anoo banaanka bildinka jooga ayaa waxaan arkay wiilkayga weyn oo bildinka soo galay hadduu soo galay waan kasoo daba galo waxaan iri buu yiri hebel aawo isaaliya hebel ma joogo war hebel wuu joogay gurigiisa imid anaa u jeedin inuu soo galay maxaa khaldan adugu arrintii haddaan daba galay buu yiri oo tagay cod baa waxaa ka maqlay buu yiri gurigay wiilkayga kale oo ah Yasmiin aabaheed ayaan cod ka maqlay codkii waan sii daba galay waxaan ogaaday buu yiri wiilkayga inuu ku jiro meesha iyo xaaskii wiilkayga kale inay maaragtaa ay dad maaragtaa isku fiican is dhexgalay inay yihiin adugu arrintii odayga iskoolad buu qaatay u galay buu yani wuxuu yiri waryaama walaalkaa baad khiyaamaysaa aduu meeshii waa la isku arkay yani Yasmiin hooyadeeda iyo adeerkeedaas adugu odayga xanaaqay xabad buu riday wiilkiisii baa wax gaareen oo uu dilay odagu waa awoowaha Yasmiin sidaas ayaa waxaa ku dhintay wiilkiisii weynaa hadduu wiilkiisii weynaa ku dhintay qoftaana uur bay lahayd maadaama ay uur lahayd Yasmiin hooyada wuxuu yiri soo dhal ugu xiray 6 bilood buu guri ku xiray dhal buu yiri markay dhashayna wuxuu dhahay fadixadii cib inaad la kulantid iyo inaan aniga ku dilo inaad adiga isku maamusho bartaa ka baxdo ilmahana iska dhigto wax ka dhaxeeya malahan adugu islaantii way guurtay markii saa u dhashay wadanka dhan bay ka haajirtay meelahaas bay aad carabaha kale u wareegtay Yasmiin hooyadeed waaye meeshaas ayaa odaygana wiilkiisii ku dilay fadeexadaas darteeda ilmahana Yasmiina waxaa dhalay ninkaas wiilkiisa kale odaga yani aabaheeda hadeer walaalkiis ayaa dhalay adugu alxaasil ninkan Yasmiin aabaheeda wuxuu markasta soo xasuusanayay markuu gabadha yani si shisho u fiirinayo
taariikhda lagu dhigay iyo khiyaanadii. Ilaa adduunka wax ka xun ma lahan, khiyaamo wax walba adduunka waa la ilaawaa, laakiin in qof kuu dhow uu ku khiyaamo waa waxyaalaha aan la ilaawi karin ayay ka mid tahay. Adigu sidaas ayay maaragtaa Yaasmiin aab yani sirta ka dambeysay Yaasmiin aabaheed inuu maaragta uusan rabin taasay ahayd. Adigu alxaasil sidaas ayay arrintii meesha ku kashifmatay, meeshii yani waa ceeb dhacday oo wixii la ogaaday yani wax walbana ay ka kashifmeen. Maamadan wiilka Yaasmiin aroosay hooyadiis ahna iska barooratay meesha wiilkayga meel xun buu galay. Adigu wiilka Yaasmiin aroosay wiil fiican buu ahaa, wuxuu yiri aniga shalay sida ii ahayd Yaasmiin oo ku jeclaa ayaa maantana ku jeclaa, wax iska beddelay ma lahan. Yaasmiin waxay tiraahday iyada niyad jabtay, waxay tiraahday maya ma doonayo inaa maaragta aan mar dambe aan kula sii noolaado, waad fasaxan tahay, warqadeydii isii, cunug bay dhashay soo maahan, cunugeygana anaa korsanaya, waxaa igu tiri kartidna igu tar. Adigu sidaas ayay Yaasmiin maaragta nolosha yani waayaheeda adag iyo duruufta la kulmay yani u barbar dhigtay inay la noolaato. Adigu muddo yar kadib waxaa dhacday qisada meesha ka jirta ayaa waxay tahay yaa weeye qofka warqadda u soo qoray Yaasmiin ninkeeda oo soo sheegay arrinta. Qofkaas qof kale maahan, waa eedadii gabadheeda la rabtay wiilka walaasheed. Wiilka Yaasmiin yani aroosay eedadii gabadheeda la rabtay, gabadhe yani waxay aragtay eedadaas gabadheeda inay aad u jecleyd ninkan. Wiil aad maaragta oo qurxow ah oo soo jiidasho leh oo aad gabdhuhu u jecel yihiin ayuu ahaa ninka Yaasmiin guursaday. Asagana doortay Yaasmiin, asagana Yaasmiin jeclaaday. sidee gabadheeda yani uga tagi karaa oo naagtaas u guursan karaa calashaan yani bay eedadani xaasidnimo eedada qaaday ayaa arrintaa ka shiftay. Hadda ka horna yani arrintan sirtan waxa ogaaba oo keli ah waxay ahayd waa ninka dhintay oo Yaasmiin laleeyahay wuu dhalay. Ninka dhintay xaaskiisa oo iyadana u aamustay inaysan waxba sheegin, sababtana ay tahay in ilmaheeda mustaqbal ahaan ugu baqday. Maamadaas iyo odayga museyga weyn oo ah iyo iyeeyo unba ogaa arrinta, iyo Yaasmiin aabaheeda. Dadka kale ma is ogeyn, qof kale ogaa malaha sirta saas marka maamadaas ayaa waxaa laga yaabaa si uun inay ku maqashay oo ay qarin jirtay cid, laakiin waalidku ma is ogin inay og tahay. Ayada ayaa maaragta warqadda soo qortay, ayadaa ka shiftay sirtana waxaa ka shiftay waa maamada eeda ah oo yani Yaasmiin eedadeed ayaa ka shiftay sirta. Adigu sidii ayay maaragta Yaasmiin nolol adag oo kale u bilaabatay oo kalinimaha ah, oo ninkii ilmaha dhalay yani ay ka tagtay, dadkii dhan ka fogaatay. Waxay tiri dadkii dhan inaan xarabe yani ka fogaadaa rabaa. Odaygii awowga ahayd maalinkaas naxdintii iyo oohintii iyo qaraankii iyo wixii uu la kulmay iyo wixii uu soo xasuustay wiilkiisii buu dilay soo maha odaga wixii yani wiilkiisana wuxuu sameeyay oo yani Yaasmiin awowgeedii yani naxdintii uu maalinkaas naxay iyo dhibkii ku dhacay gabadha yarta Yaasmiin ah iyo micnihin waayihii adkaa ee nolosha iyo wixii kasoo mooday iyo wixii hore u dhacay oo inuu wiilkiisa dilay iyo khiyaanada wiilkiisa uu sameeyay iyo wixii odaga weyn yani u dulqaadan waayay. Adiga xanuunku xanuunsaday maalinkaas wuu u dhintay awowgeed Yaasmiin, iyadeedu waa dhimatay. Waxa u haray waa aabahan oo ay yani sheegay hadda ogaatay wax walba yani iyo wixii wax u jireen. Hooyadeed waa qofka yani aan lahayn. Adigu nolol adag iyo waqti adag ayay maaragta la waajahaysay, waxayna go'aansatay Yaasmiin inay maaragta nolosha kaligeed waajahdo oo qof kali ah noqoto oo ilmaheedana maaragta ay korsato, qofna aysan u joojin, ayna ka socoto wax walba. Adiga qisada Yaasmiin sidaas ayay ahayd. Ilaa Yaasmiin qisadeeda ayada la wadaagtay jaraa'idada caalamka. Intaan qisada qisa lamid ah la kulmayno waxaa idinkaga tegayaa fi amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.